waxaan halkan shirkan jiraayid ugu talagalay inaanu u bandhigno ama u baahino dhacdo ka dhacday degmada Celaf Weyn ee gobolka Sanaag tuulada la yiraahdo Bildaaley dhacdadaas oo ahayd deegaanka kan aanu iminka ka hadlayno waxa jirta waxoogaa sida warkaan ku helay rag xildhibaanaha ka yimid degmada Saaxil oo goobta yimid meesha la yiraahdo Bildaaley iyo meesha la yiraahdo Beerxamale waa tuulo ka mid ah degmada Celaf Weyn xildhibaanadaas ka yimid Saaxil waxay qabteen shir arintaas waxa weeye waxay iska horkeenaysaa beelaha iyo deegaamada dadka labada gobol ah waxaan u sheegaynaa dawladda waxaan u sheegaynaa inay meeshaas tahay deegaanka Celaf Weyn gobolka Sanaag lana yaqaano wasaaradda arrimaha gudaha yaalin labada magaalaba diiwaankooda sanaaduuqdii iyo diiwaangelinta diiwaankeedii inta aan anagu xildhibaan ahaan aanu ka fadhiganaa aanu sheegaynaa oo leenahay yaan bulshada fidma laga dhex abuurin dadkana been loo sheegin xadka iyo xuduudaha dawladda dhexaa jirta oo u qaybsan oo kala sheegaysa hadday Sanaag tahay iyo hadday Saaxil tahay sida dastuurku ku qoray ama dawladda Soomaaliya soo saartayna xuduuduhu waa xuduudihii hore gobolada tii goboladii hore lixdii hore gobol weeye xaddanba oo la sameeyay oo dadka deelka raxay degma noqoto ama gobol ha noqotay annagana looma sheegin inta waxaanu aragnaa in dheeraada in bulshada kicinaysa dadku isagu ma kala lahaa xad ma leh Sanaagna waa la waday karaa Saaxil waa la waday karaa sidaas baanu u sheegaynaa haddaanu xildhibaanada degmada Celaf Weyn inta kadib waxaan ka cudur daaranaynaa meesha waan ka soo shaqeynay dhiig rabaanu ku soo allownay waxaanu dawladda dhexe ee Soomaaliland ka codsanaynaa ciddii gobolaysi iyo degmaysi iyo wax la mid ah ummadda ku kacaysaa meesha wixii ka dhaca iyada un baa mas'uulka ah